wax ka baro taariikhda Nabi Yaxya alayhi salaam. Nabi Yaxya alayhi salaam magaciisu waa Yaxya ibn Zakariya alayhi salaam. dhalashada Nabi Yaxya alayhi salaam waxay ahayd dhalasho mucjiso leh. Aabihiis wuxuu ahaa 100 sano jir, hooyadiisna waxay ahayd 90 sano jir madhaleys ah. Allah subhanahu wa ta'ala ayaa samada ka soo magacaabay Nabi Yaxya alayhi salaam oo magaciisa siiyay. Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Yaxya isagoo da'diisu aad ay u yartahay ayuu wuxuu siiyay nabinimada, wuxuu siiyay cilmi iyo xigmad. Nabi Yaxya alayhi salaam isagoo yar ciyaalku markii ay damcaan la ciyaaraan ayuu wuxuu oran jiray nalooma abuurin ciyaar ee waxa naloo abuuray cibaado. Nabi Yaxya alayhi salaam markii uu soo weynaaday ayaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu kula dardaarmay in uu naftiisana uu ku camal falo reer bani Israa'iilna uu gaarsiiyo 5 kelmadood. Nabi Yaxya alayhi salaam reer bani Israa'iil ayuu isugu yeeray Baytul Maqdis. masaajidka Al-Aqsa ayaa soo buuxsamay, markaasuu mimbarka intuu fulay buu wuxuu yiri qoomo waxaa la ii dardaarmay in aan ku camal falo 5 kelmadood idinkana aan idin gaarsiiyo. 5taas kelmadood waxay ahaayeen in Allah subhanahu wa ta'ala kaliya uu caabudo oo cid kale cibaadadiisa uusan ula shariig yeelin. midda labaad waxay ahayd inuu salaada oogo, midda saddexaadna waxay ahayd inuu soomo, midda afaraadna waxay ahayd inuu sadaqada bixiyo, midda shanaadna waxay ahayd in uu Allah subhanahu wa ta'ala mar walba xuso. qaabkee ayaa loo dilay Nabi Yaxya alayhi salaam? Nabi Yaxya alayhi salaam wuxuu ka agdhowaa oo la tashan jiray boqorkii waagaas Falastiin xukumi jiray oo magaciisa la oran jiray Herodes. waxaa la yiraahdaa haweeneydii boqorku uu qabay ayaa waxay da'weyn ku gaartay iyadoo wax caruur ah aan boqorka u dhalin. laakiin waxaa jirtay gabar iyadu ay dhashay oo nin kale ay u soo dhashay. markaasay boqorka waxay u soo bandhigtay in uu gabadheeda uu guursado. boqorkii intuusan yeelin ayuu wuxuu la tashtay Nabi Yaxya alayhi salaam. Nabi Yaxya alayhi salaam wuxuu ugu jawaabay in ay xaaraan ka tahay oo gabadhaasi ay tahay gabar maxramkiisa ah oo uusan guursan karin. xaaskii boqorka ayaa intay xanaaqday ayay gabadheeda intay u timid bay waxay ku tiri isku soo qurxi boqorka oo u tag oo isku day in uu zina ka samaysto. gabadhii sidii ayay samaysay, boqorkii bay u timid. boqorkii markii ay fitnaysay oo ay ku guuleysatay in uu la sameeyo macsiyadii ayaa intii aysan falkii aysan gelin bay waxay ku tiri haddii aad doonaysid nafteeda inaan kuu soo bandhigo Yaxye ii soo dil oo madaxiisa meher iga dhig. boqorkii markii hore wuu diiday, laakiin markii dambe shaydaan ayaa waswaasiyay. ciidankiisii ayuu wuxuu u diray in ay soo dilaan Nabi Yaxya alayhi salaam. Nabi Yaxya alayhi salaam isagoo ku tukanaya mixraabka Masjid Al-Aqsa ayay intay u yimaadeen ayay madaxa ka jareen. markaasay madaxiisii waxay u keeneen gabadhii boqorku xaaskiisu ay dhashay. markaasay waxay tiri maanta ayaa la ii soo arguday. waxaa la yiri isla markiiba Allah subhanahu wa ta'ala wuu u arguday Nabi Yaxya alayhi salaam oo haweeneydii waxay ka soo dhacday qasriga, dhulka ayayna ku soo dhacday. isla markiibana waxaa cunay hilibkeedii eydii qasriga joogtay.